wiilkan wuxuu rabay walaalkiisa inuu qabto laabta geliyo balse hooyadiisa arkays kadib ay kala tuurayso marka wiilku wuxuu keenay sawir ku raalgelin hooyadiisa balse wuxuu fahmaysaa inuu soo sawir kadib ay garaacaysa banaanka inuu bixinaysa wiilka yar markaas cunug aad u ilmaanaya wiilban isagoo kalimaa dhibaatooyinka hooyadiisa ay ku hayso markaas cunug soo fasaxaysa wiilban ayagoo geenaysa magaalo kale wiilka yar odaga ayaa loo keenay markaas waxa uu cunuga maayad haysa isagana cunug uu soo dhaweynaya laakiin iyaga kama helaya cunugaaniya markaas cunug xanaaq wuxuu isku dayay iyaga wax ku dhufta balse odaga ayaa maana kadib isaga ka celinaya isla markaas odaga wuxuu bilaabayaa inuu ciqaabo isagana wiilka yar wiilban isagoo rabo inuu dibkan ku gubo balse cunug meesha ayuu ku suuxaya markaas odaga yaabaya sidoo kale uu nahay cunuga soo qaada meesha ayuu geynaya uu isku dayo inuu fiiriyo borsadiisa wuxuu ku arkay warqad ay ku qoran tahay lacag haduu cunugaas waxyaabo yar oo ka sameeyo xariisana uu jixin meesha u leeyahay qudurta ushaas oo kaliya waa inaad ku garaacdo markaas odaga fahmaya cunugan dhibaatooyin far badan inay haystaan kadib dharka ayuu ka bixinaya intuu dharka ka bedelin kor wuxuu arkay dushiisa dhibaatooyin far badan ay ka muuqdaan odagan aad ayuu yaabaya odaga wuxuu go'aansanaya ushan isku tur kadib cunugu ku soo dhaway kambanigiisa wiilban isagoo farxad far badan siinay wiilkan yar muddo kadib wuxuu ku dhaay wiilka yar hooyada warqad ku soo dirtay hooyada waa inaad u laabataa wiilka yar uu soo wadaa wiilban isagoo saaray tareenkan wuxuu diray magaalada London markii wiilka magaaladiisa uu ku soo laabanay balse hooyadiisa gacanta u taagay ayadana kama qaadaysa salaanta way fiirinaysaa inuu ku xanaaqaysa kadib markuu guriga ku soo laabtay wuxuu isku dayay inuu shay khibradiisa balse ayada ku xanaaqaysa banaanka uu tuursay sidoo kale way garaacaysa odagan wuxuu ka walwalay cunug markaan la garaacay kadib inuu soo baxay wiilban isagoo soo aaday magaalada London markaas uu arkay cunugii meeshan ku dhibaataysan wiilban isagoo cunug yar farq ku haysta kadib cunug yar uu soo waday wuxuuna keenay halkaan sidoo kale halkaan uu ka sii waday wuxuuna geenay isbitaalka wiilban isagoo inuu daabiyo cunugan sababta cudur maskaxiyan ayaa ku dhacay isla markiiba xitaa cunug yar wuxuu gaaro uga booq meelaha bulshada kadibna odaga habeenkii uu imaanayo isagoo dhaaniga xaafadeeda ku geysanaya kalena waxay rabeen inay geen xirada awaamada balse isaga soo wadanay wuxuuna keensanay magaaladiisa markaas odaga wuxuu bilaabay si tartiib cunug maskaxdiisa inuu soo celiyo wiilban isagoo siinay farxad ka duwan tii hore markaas dadka oo imaanay wiilban ay ugu ku inaan geen xirada awaamada balse isaga uu ku diiday wuxuu ku dhaaniga mar weyn aan ka tago awowgiga isaga la joogaya